بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dal iyo dibad waan ku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan maanta isugu nimi shirkan jaraa'id ku saabsan yahay waxyaalaha ka socda labada gobol ee la yiraahdo Sool iyo Sanaag aanu inoo kala qaybinayo Sool iyo Sanaag waan ku horeysiinayaa Sanaag iyo dhibaatada ka socota marka ugu horeysa waxaanu ku bilaabaynaa Sanaag gobolka Sanaag laba reerood oo walaalo ah oo la isku dirayo oo ay isku dirayaan cuqaasha haday tahay kuwa habar jeclo iyo haday tahay kuwa kaleba oo ay isku dirayaan oo beelahaas ay shir jaraa'ido ku jeedinayaan marba oo ay shirka jaraa'id uu yahay ay leeyihiin hadii aanu nahay beeshan iyo hadaanu nahay beeshan marka ugu horeeya beesha aniga ah ee habar jeclo ayaan la hadlayaa waxa ku adducootaan in boqorka la soo daayo boqorkiina bal waxa isweydiiyo مساعد يونس baa xidhay mise dawlad boqorkiina iyo waxa isugu xidhaysaan iyo nabadgelyada dadkiina taasi dhibaatadeeda iyo dulmigeeda iyo xasanadeeda iyo dhibaatadeeda ayay leeyihiin talabaad afar jeer bay lagu cadkii jabin oo aynu dhaarana innagana loo tagleeyay reerkani waa faqash ilaahay inta ka yaabtaan oo waa la inagu mahmaha wax la imika waxa iska dhaartaan sidii habar jeclo inta ilaahay ka yaabtaan waxaan idin sheegay oo ubad baa ka tagaysaa dadkana wadada walaalihiina nabadgelyada iyo inanka yare asli maydi ee dhibaatada ku wada ee imika odayaasha garweyn beertii la oran jiray xaaji aadan afqalooca garanaysan ninkii wadaniga ah niman garweyn intay fariisteen ay yiraahdeen annaga oo matalayna Saad Yoonisna ka daba hadloo yiraahdo lama matala dhibaatada ka socota cuqaashaas kamida oo kuwa garweyn ee beerta isku soo xidhay baa kamida oo ninka yiri waxa la yiraahdaa موسى علمي عبد الله oo yiri hadii aanu nahay hadana dawladda waxba ka qaban Saad Yoonis annaga wax ka qabanayna taasina dhibaatadeeda iyo balanbalkeeda ay leedahay waxa tagay laba wasiir oo midna habar jeclayay midna habar Yoonis yahay ina kaahin iyo ina mira tagay labadoodaba aslimay dib soo laalustay oo waa tan gawaadhida loo iibiyay wasaaradda arrimaha gudaha haday tahay taliye bilays iyo haday tahayna ina mirana kaashkiisii ayuu ku soo qaato mire waa garanaysan oo mujaahidkay walaalaha ay waa garanaysan marka labada nin ee reerka ahaa halkay reerahooda kala dhex gali lahaayeen waxay soo kala sameeyeen guruubiyo gudiya oo cuqaal ay gacantooda ku sameysteen taasi waxa weeyaan arrimaha Sool Sanaag ka socda waxaana ka mas'uula dawladda asl inanka ayare asli maydi ee lacagtooda yaasha u qaybinaya hadii aan la qaban dawladuna ay la ogtahay wasiiraduna kula socdaan gudida ay gaar ahaan u sameysteen oo la yiri reerihii la deganaa haday tahay harti dhul bahante iyo warsangeli oo yiri annaga nimanka isku dhaqan oo dhex galayna dawladda ayaa ka saartay taasi waa arrimaha Sanaag ka socda waxa timi Sool Faysal Cali Waraabe ninka lagu yiraahdo Salebaan Gaal ninka lagu yiraahdo Cali Khaliif Galay ninka lagu yiraahdo Baashi mashruuci ay ka soo qaateen Germany ee lacagta lagu soo siiyay inay dagaal ka oogaan ayaa iyagana halka dhibaatada ka wada bal Faysal Cali Waraabe sidoo Puntland ugu dheeraanayo dhageysta waayo wuxuu ka soo qaatay mashruuc Salebaan Gaal wuxuu yiri waan adeer dhulka annaga leh Salebaan Gaal miyuu ilaaway qurulugu tii uu ka sameeyay ee dagaalku ka oogay sukeeya ahaa ee uu ka oogay meesha lagu yiraahdo Kalshaale Salebaan Gaal baa ka dambeeyay imika kan ka socda ceelaf weyna Salebaan Gaal lug buu ku leeyahay isagoo adeegsanaya inanka yar iyo lacagta asli maydi marka waxaan idin sheegayaa ummadda Soomaaliland habar jeclooy isqabta oday habar jecloo wali hadlay lama arag kitaabba ku dhaaranaysan wacadkii baa jabiseen dagaal baa ku foogantiin waxa doonaysaa dawladda inta adeegsataan Saad Yoonis la dagaalamo Saad Yoonis la dagaalamayana ma jiro Saad Yoonis meesha ku dhasheen waana loogu yimi awowgiisii baana ku aasan taas waa taa nimankii loo oran jiray qori jarato ninkan lagu yiraahdo Ali Case ee suldaanka sheeganaya tuuga ee meyd iibiyay iyo qudbigii qori jarato miska qaban waaye qori jarato rugmad baa iyadana u soo baxay nimankii xaaji baraafalaha ee lahaa salaadiinta maanta waxa uu tanay Ali Case oo ay wato inanka yar asli mayd waxa kamida caaqil kan yar ee Cabdalla Xaamid ee tuuga ee jigjiga looga dhisay guriyaha ee halka ka iibiya dhiiga Saad Yoonis ee garweyn nimankan biciidana waxaan oon lahaa inta ilaahay ka yaabtaan oo shahaadataan oo dad islaam ah hadaatiin joojiya waxana wadaan
dhibaatadan aabbari ku wadaan ka joojiya suuf alool ka dhici maayo dagaalla ka dhici maayo guryihiinna ha gubina wadadkiinna ha gubina waryaadhaheen ilaahay ka yaaba oo habar jeclaya shahaata war idin meeye caqligii meeye cuqaashi habar jecla meeday waxaa taagantihiin suldaanka boqorkayga la soo daayay war boqorkiina yaa xidhay ma dawlad baa xidhay mise Sacad Yuunus wabal isweydiiye ilaahay inta ka yaabtaan dadka noocaasa ayaa Soomaaliland dhibaatada ku wada waxaan ku soo gabagabayn lahaa hadalkan oo aan hadalkan ku soo dhamaystirayaa nin yiri abwaan baana oo yiri cuqaashaan ahay ma jeerteen oo yiri waxa lagu tukanayaa beer nin abwaani ama cuqaalid dagaal iyo hadima kaba taliyo waxaan oran lahaa ninka Puntland ka soo hadlayo ilaahay ka yaab oo ubadkaaga u dagaaladan iyo colaadahan lagu wado Somaliland ee harti lagu wado nimayo dhul bahante iska qabta in Cali Waraabe iyo Baashi iyo wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta iyo Cali Khaliif ragga idin baabiinaya waa ragga talabaad waxaan idin sheegi lahaa maanta xabashidii baa leedin geeyo idin kala guraysa hatta idin ka heshiin lahaydeen Soomaaliyay ina xabashu kala dhuumataan oo idin kala hom warga idin sheego wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh